وتهاي أدو مهتني هاي مسعود عبد الله آذن ciidamada dawlad goboleedka Jubbaland ayaa waxay la wareegeen deegaano dhowr oo ka tirsan waqooyiga magaalada Kismaayo gaar ahaan tuulooyin dhowr oo hoos yimaada degmada Jamaame xilli al-shabaab ay isaga baxeen degmadaasi Farax Yuusuf Cabdi ayaa warkan inoo eegaysa ciidanka dawlad goboleedka Jubbaland iyo ciidamada xoogga dalka ayaa howlgal ka bilaabay qaybo kamid ah gobolka Jubbada Hoose ciidamada ayaa la wareegay deegaano hoos yimaada degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose oo kamid ah meelihii maleeshiyaadka nafalcaariga al-shabaab ay ka heli jireen dhaqaalaha deegaanadan ayaa waxaa kamid ah deegaanka beeraha caanka ku ah ee tuulada Koban Barsanguni bundada Arare Wirko iyo deegaano kale oo ku dhow magaalada Jamaame deegaanka Barsanguni ayaa waxaa lagu dilay 16 dagaalyahan halka duqeynta cirkana lagu dilay 40 ka tirsan maleeshiyaadka ururka al-shabaab waxaana sidoo kale gacanta lagu dhigay hub iyo miinooyin aad u tiro badan oo ay rabeen inay ku dhibaateeyaan dadka Soomaaliyeed magaalada Jamaame guud ahaan basaaka ay isaga baxeen ururka al-shabaab waxa sidoo kale ay ka baxeen deegaano dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Jamaame ka bixitaanka al-shabaab ee Jamaame ayaa waxa ka dambeeyay howlgallada ciidamada dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ee bilaabeen howlgalladaas oo lagu baaxsanayo kooxda nafalcaariga ee nabadiidka al-shabaab Farax Yuusuf Cabdi Jubbaland TV magaalada